hadday waxooda kugu shubaan weligeed ku deeqayso waxaad adigu gacantaada ku qabsato iyo maskaxdaada iyo taladaada iyo garashadaada waxaad ku qabsato wax ku deeqi kara intaasaa jira oo uu la jiro iimaan iyo kalsooni aad naftaada iyo dalkaaga iyo diintaada aad ku qabto wax kaloo ku deeqi karaa ma jira Soomaaliyeey dantaada u jeeso iska daa indhaha u taagayso dalal kaleeto iyo wixii ka imaanay warka ayaynu tabcanay beereen aan tabcan oo badeena kala soo baxnay wax ku yaa oo xooleena aan xanaanaysano aan ku noolaano wixii waxayna dheer aynu kaalmaysano asaan cadow ku ahayn dalkeen iyo dadkeen arinu intaas weeye diinta aan gudbo nabigeena suubana maxamed tawrad buu sameeyay ilaahay baa u dhiibay tawradda ku ahanay tawrad buu sameeyay meel adduunka aad tagto aadan dad islaamka ku arkayn yaa fidiyey waxa yaa gaartay tawraddii nabi maxamed loo soo dhiibay ilaahay u soo dhiibay baa fidisay oo qof walba oo islaam ah taasa saaran gacanku markuu dhashay waa shirinay waxaan war dhageysta waxaynu caabudnaa waa ilaahay weynaa waaxid ah wuxuu inoo soo mariyay oo inoogu sheegay dariiqan raacinayna kitaabkiisa kariimka wuxuu inoogu soo dhiibay rasuulkeennii suubanaa inoogu soo dhiibay inoogu soo dhiibay waxaa halkaas ka soo ifbaxay ficilkii iyo qowlkii nabigu uu ka tegey ayaa ka soo ifbaxay xadiis buu noqday marka qof walba dariiqadiisa ha haysta hadduu doono laakiin midka inaga dhaxeeyaa waa tiirkaas dariiqada wado laakiin kaas uu ilaahay guddoonshay ummadaas aan abuurtay inta midowdaan ha kala furfurmina taas ha noqoto asalkii dariiqa la raacay kaas way ku dhaqaaqay mahad iyo ammaan baa u jeedinayna haddaan taariikhda dib u raaco culimadii la tirinayay ama tawriintii la tirinayay magacyadooda waxay kuwii badbaadiyey kulliba dadka Soomaaliyeed inay baaqi ku ahaadaan islaamnimadooda dawladdu markii ay gaarto go'aan ama sharciga qaranka la dhigo fuliyayaal bay u baahan fuliyaalkii adinka weeyaan waacidinta weeyaan dariiqooyinka weeyaan madaxda masaajidka weeyaan iyagaa la rabaa inay fuliyaan iyagiyo wasaaradooda yaa mas-uuliyad dul saaran dagaalka labaad waxa weeyaan midka dhaqaalaha waad ogtiin macaashadu meesha ay sii marayso haddaynaan annagu inta marada dhexda ku xiranno adkaysano aynaan tabcina weligaan ka bixi mayno gun iyo gacan horsi baan u dhammaanaynaa ma gun iyo gacan horsi baan ku jiri karnaa insaanku sharaf buu leeyahay karaamuu leeyahay oo maanu inta ilaaheen cuskano iyo nafteenna maynu qof iyo yaanba inta qaato waa ka halka doow ka baxay maanu wax ku abuurno bal qof walba gurigiisa muu ku abuur geed lima inuu bixiyeen kala arkay oo geed babaaya ku abuura oo geed camba ku abuura waa baxaya qof gurigiisa uu baxay ma jirto waxaan kaga bixi karnaa inaanu u jeesano tacab kii badgala ha galo kii biri gala beer ha ka doonto kii xoolo haysta ha tabcado ha xanaanaysto kii wax kaleeto oo qiimo leh qabanaya ha qabto qof gaajaysano gob ma ah gun wey wixii la rabo iyo dantii la rabaa laga samaystaa oo maxaanu nagu kalifayay inaanu saas u gurowno dadkeenna inaan jahayna doonaya innagaa rabaa inaan jahayno tan saddexaad waa dagaalka shacbigeenna lagu abuuray in maanta 16 sano kadib oo dulligii foosh xumaa aynu ka soo baxnay dad ahaan iyo qaran ahaanba haddana la doonayo dib in loogu celiyo qabiilkii xumaa oo isticmaar ka dambeeyo waa isticmaarka xabashida waxaa loo baahan yahay ummadeenna inaynu hanuunino oo culimadiinaan waaweyno weliba aad marada dhexda ugu xirataan ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan inay ku tarsaasiyaan oo kor ugu hadlaan oo si geesinimo ugu hadlaan inay ummadooda toosiyaan oo ka hanuuniyaan dariiqa jahannamka ah dariiqa mustaqilka inay ku leexiyaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته